maalintii afaraad ayuu galay duulaanka Ruushka ku qaaday dalka dariska la ah Ukraine iyadoo shacabka ku nool caasimadda Kiev xalay mar kale intooda badani ay ku hoydeen guryaha shubka iyo godadka tareenada maray dhulka hoostiisa siday ugu ban lahaayeen madaafiicda culculus ee Ruushka sida habeenadii Jimcihii iyo Sabtidii xalay ma jirin duqeymo laga soo wariyay magaalada caasimadda Kiev marka laga reebo gantaal lagu dhuftay kaalin shidaal oo ku taala meel 40 kiiloomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Kiev. duqa magaalada Kiev ayaa Sabtidii ku dhawaaqay bandow xalay magaalada ka dhaqan galay kaas oo socon doona ilaa iyo subaxnimada Isniinta berri ah. duqa magaalada waxa uu sheegay in intii lagu arko wadooyinka magaalada Kiev loo tixgelin doono ciidamada Ruushka. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay xaqiijisay dhimashada 64 qof oo rayid ah iyo dhaawac 240 kale ilaa iyo hadda.